guud ahaan bagayga Soomaaliland ayaa horumarka uu sameeyay iyo halka uu maanta higsanayo lagu tilmaamaa inuu yahay halkii ugu fiicnayd ee abid uu soo istaago dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waayadan dambe dalku uu ku jiro abaar xoogan oo dad iyo xoolaba lagu leeday magaalada Hargeysa oo ah caasimadda dalka Soomaaliland waxa ku dhaqan in ka badan 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof waxa ka jira horumar dhinac walba leh marka aynu eegno dhanka waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaanba adeegyada aasaasiga oo ah nolosha mujtamaca ku nool magaalada iyo guud ahaanba Soomaaliland ayaa ah kuwa iyagu ku baraarugsan isla markaasina la jaan qaadaya dunidani casriga ah daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkanina waxa aynu ku eegaynaa mid ka mid ah horumarada ama tadawurka oo dadka reer Soomaaliland gaarsiiyeen dalkooga oo ah adeegyada casriga ah ee aadka u degdega badan ee bulshada loo qabto oo ku soo kordhay dalka barnaamijkeena iyo toddobaadkana waxa inoogu martiya Ibrahim Xuseen Tahar oo u qaabilsan shirkadan KFG maamulka shaqada iyo shaqaalaha Ibrahim ugu horeyn waan kugu soo dhaweynayaa markii xigta waxaan jecelahay bal inaad nooga waranto xafiiskaagani waxa uu qabto iyo waliba sidii aad ku aasaasteen Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad baan u faahfaahsantay walaal maanta xafiiska xarunta KFG nagu soo boqoteen anagu xafiiskaygu wuxuu qabtaa adeegyo kala duwan oo dhinacyo badan leh waxa kamida adeega koowaad wuxuu noqonayaa procurement waxa la yiraahdo procurement wuxuu noqonayaa marka waa adeegan dadka alaabta la soo iibinayo marka waxa dhacda for example qofkii alaabaha waxa nafta soo iibinaa ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yaryar customerska shakhsiyaadka caadiga hay'adaha dawliga kuwa NGO-yada alaabihii aan soo iibinay iyaduna way kala duwanaanaysaa cadadkooda ugu kala duwanaanaya oo waxay ku xirantahay capacity-ga qofka inta alaabta leegtahay uu doonayo marka waxa for example cycle buu maraysaa alaabtii la soo iibinayay marka hore waxa muhiimadu tahay in la eego quality inspection-ka iyo tayada la isku eego qofku waa ku imanaya wax ku oranaya for example alaabta noocaas ma doonana marka anagu waxaan ku xirnaa qofka shuruudo ah in uu hubsado alaabta nooca tahay quantity-deeda specification waxa la yiraahdo waxa weeyaan alaabtu waxay tahay iyo nooca tahay sidoo uu rabo ka bacdi marka inta ka hubsano waxaan u sameynaa dalabka markaan u sameyno qiimeyntii baan u sameynaa qiimeyntii alaabtu inta ahayd hadduu ku qanco waxa marka qofkii laga saxiixaya contract ma la gelina ah inuu alaabtii ku qancay
ayaan ka saxiixaynaa marka intaas sameyno waxaan sameynaa alaabtii markaa waxaan ku leenahay xafiiskaygu xarumo badan ku leeyahay xarun waxaan ku leenahay xafiis caadi waxaan ku leenahay China KFG China branch wuxuu shaqeynayay oo si rasmi ah uu shaqeynay waa 2 sano u dambeeyay laakiin intaa waxaa noogu horreysay inaan muddo ku jirnay iyaduna door ah indhayn xogoorin oo sida dhammaantiin ay ogsoon tihiin shirkada cusub marka meel cusub marka la yeegleelayo waxa caado u ah intaan la furin la saxuurin la sameeyo annagoo taa ka duulayna kala turjumana baahiyaha waddanka yaalla sida soo iibsiga agabka caafimaadka agabka waxbarashada agabka beeraha dharka iyo agabka dhismaha qalabka dhismaha iyo wixii lamid ah annagoo taa ka turjumana ayaa muddo waxaan ku hawlnay sidaan baahiyaha waddanka jira wax qabtiri lahayn midna Djibouti baan ku leenahay Dubai iyo Turkina iyagana waxaa noo joogaa agents insha Allah mustaqbalka aadu doorka bilaha soo socda waxaan jecel lahay inaan xafiiska Dubai aan furno marka adigu waddankeenan ama caalamka oo dhan ka wansan ognahay alaabaha ugu badan iyo waxa ka yimaadaan waddanweynaha China ay u yimaadaan marka dalab iyaduna Dubai way jirtaa Dubai waxa noqonaysa in Dubai ka wareegto China wareegto oo alaabtii xagga dadkii oo xagga soo wada wareegeen marka waxaan ku waday qiimeyntii ma sameynay qofkii ma ku qancay ma ka saxanay ka bacdeen waan u direynaa alaabtii markaan alaabtii dirno waxa la tagayaa alaabtii waa la soo eegayaa quality waa la soo eegayaa cadadkii waa la soo eegayaa ka bacdi waa la soo rarayaa marka la soo raro waxa la keenayaa dekadii waddankaas ay taali alaabtu amba haddii ay noqoto laba in la soo saaro diirad iyo haddii noqoto in la soo saaro markab ka bacdi marka inta la sameeyo waxa la sameeyaa khalisaadii marka khalisaadii la sameeyo alaabtii waxaan ka soo dejinaa airportkeena caadiga ee Ciyaal International iyo dekedeena Berbera marka qaar haddii qofku jecel yahay in loo soo mariyo dhulka Djibouti oo kale waa loo soo marinayaa oo by transportation waxa la yiraahdo gawaadhida caadiga ee soo qaadaysa markii alaabtu xagan timaado marka waxa uu hadhay qofkii in loo sameeyo cashuurtii loo sameeyo loo soo khalisaadii loo sameeyo adeegii dekadii xoodhan loo sameeyo ka bacdi waxaan sameynaa qofku markay xagga alaabta dekadu timaado diyaar u noqoto in la soo saaro marka qofku wuxuu haysaa option ah in aan gurigiisa ugu geeyno qofkii amba isagoo hadduu jecel yahay uu tago dekadii waa alaabtoosiis uu soo rarto horta magacoo kooban baynu dadka u sheegnay xafiiskaaga KFG logistics baladeed dadweynahayna daawanaya sharaxaad ka siiso maxaad u soo gaabiseen logistics aad lafteeda kelmadaadu macnayso xafiiskaagu adeega uu qabtona aad ku raaciso KFG logistics horta waxaa soo gaabnay kelmada waxaa soo gaabnay keen eftana waxaan soo gaabnay fast keen and fast marka waxay ka dhigan tahay adeeg hufan oo waqti gaaban lagu qabanayo oo reliable ah oo ah competent ah oo magaranaysa suuqina qiime macquul ah alaabtii lagu keenayo logistics kuna adigu way balaadhan tahay oo kelmadda logistics adeegyo badan baa hoos imanaya sidaan ku sheego kale alaab soo iibintii waa qayb kamid ah logistics waxaa kamid ah waxa la yiraahdo clearance pass jira oo for example qofka marka qaar dadku waxay ku oranayaan alaabtii anaga soo iibsanay dekadii taala amba airport taala waxaan doonaa qof noo soo dhaafiya alaabtii amba nooga soo saara marka adeegaasna waan qabanaha logistics waxa kala hoos imanaya waxa la yiraahdo moving and relocation waxay noqonaysaa raritaanki qofkii la rarayo haddii qofkii noqoto qof personal gurigiisa doonay inuu noqdo amba hay'adihii NGO-yadii amba corporationkii dawladda inta waa sameynaa waxyaabaha kale aan sameynaa iyaduna waxa kamid ah crainti gawaarida la kireenay oo gawaarida kireenta badan waxaan anigu gawaarida ka kireynaa hay'adaha iyo sida Save the Children oo kale marka kireenti waxay noqonaysaa laba inaad noqoto
mar loo baxayo filtri oo kale gaari la doonayo taga Cergaabo amba awdal kala taga iyo gawaari doonaysa inay ka dhex shaqeyso Hargeysa waxa kale oo jirta iyaduna waxa la yiraahdaa shuttle services oo ah gawaadhidii shaqaalaha bil bay kaleesanayaan amba sanad bay kaleesanayaan hay'adu marka shaqaalihii baa waa xayeen shaqo keentii la geeyay yara ruuxadoodii ruuxayeen taasna waan qabanaa waxa kale oo qabanaa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa warehousing iyo distribution warehousing waxa weeyaan for example dadkii waxa jira dad alaabtii soo iibsanaya balse aan haysan meel ay ku keediyaan keedkii marka keedkii waxa uu sameeynaa qofkii aduu doonayo waan u sii adiga waan qabanaa intuu heliyo meel meherad aduu doonayo meheradii aanu diyaarhayn intuu diyaarsanayo meheradii waa loo sii haynaya alaabtii marka waxa charge garna 5 cisho hore waxba ma charge gareyno after 5 days wixii ka bilaama ayaan charge gareynaa marka waxa uu yahay aduu bill baa loo ogol yahay marka qofkii inuu alaabta loo keediyo iyaduna waxa jira distribution kii oo ah alaab la qaybinayo qof baa wuxuu doonayaa iminka hay'ado kale ayaa waxa caawin bixinaysaa waxay doonaysaa inay alaabo geyso oo ay alaabo soo qaybiso dadka dad badan oo miyiga oo kale ay gaarsiiso ama magaalada dhexdeeda oo kale la doonayo in medicalkii la qaybiyo amba cuntada la qaybiyo raashinkii la qaybiyo haday noqoto xitaa biyihii anything marka waanu qabanaa waxaan sameynaa mararka qaar haddii ay u baahdaanna waxaan raacinaa qof supervision ku sameeya oo annaga naga mid xafiiska ka mid ah oo alaabtii ka warhaynaya safety-geedii wax walbaaba si la rabay inuu dhaceen meeshii la doonayay inay gaadhay marka adigu logistics way balaarantay haddana maanta weli wado kama baxayo ka bixi maayo goormaad bilowdeen hindisahan adeegana dadka u qabanaysaan iyo xafiiskan maxaan radaa furitaankiisa ma sha Allah waad maasantay wala su'aasha weydiisay shaqada waxaan bilownay sanadkii 2014kii imika waxaan shaqeynay 2 sano iyo 2 sano waxaan shaqeynay xoogaa shaqadan adigu waxaan hayn markii hore anagu waxaan dad iska jecel inaanu organize gareyno trip markaan joognay jaamacadaha oo kale anigu horta waxaan arday waxaan wax ku soo baratay dalka Malaysia marka sidaan ognahay dalka Malaysia oo kale waxa jira goboladii dalxiis baa loo baxaya dadkii fasaxa marka heshiid waxa tagaysaa wadda waxa doonayso dalxiistid amba aad maanta soo aragtay meel cusub oo kale for example inaad tagtid mountainska soo eegtid amba tagtid badda oo kale adigu way wadanka Malaysia u badan meel badan la tago marka waxa dhacda dalxiisku wuxuu ku fiicay horta in la isku raaco group marka groupkii waxaan hayn dad aad u furan in la organize gareeyo dadkii la isku keeno surf loo guriyihii iyo meeshii locationkii iyo wixii meeshii la seexanayay hoteelada waxa soo dhan aad baan u jeclaan markaan wadankii ku soo noqonayna fikradii anagoo xambaarsan ayaan nimid oo aad u xiiseynayna marka shaqadii ayuun marka bedelay oo noqotay mid professional way markii aad dibadii wax ku soo barateen aad dalkii hooyo ku soo noqoteen ayaad dabcan indhayseen markaas idin ku dhalatay in adeegaasi maqan yahay oo aad buuxisaan aad baad u mahadsantiin sababaha ugu waaweyn ee aad u cuskanayso samaynta xafiiskeenan maxaa kamid ah 1 iyo 2 markaad aragto baahida dalka taal sababaha ugu waaweyn wax weeyaan waxa jira dad badan oo ku imanaya kooranaya waxaan rabaa inaan marka hore markaan aragnay baahida loo qabo ganacsatadu u qabato in adeegan loo qabto for example waxa ganacsatadu waxa dhacaysa inuu qof doonayo in alaab loo soo iibiyo balse aanu haysan cid uu la xiriiro cid alaabtii magarasa u soo waarida meel uu lacagtii ku shubo cid uu kala xiriiro marka annaga safety-gaas waxaan jeclaanay inaan qaadno inaan anagu u fududeeno qofka ganacsiga rabay waxyaabaha kale ku dhaliyo waxa ahayd dad badan baan aragnay oo ganacsato dad caadi u doonay inay bilaabaan ganacsi balse aan haysan waxba ka haysan bay baqasho ku jirto oo aan jirin cid ay aaminaan oo kale oo baqasho badan ku jirto oo meel ay wax geeyaan lacag geeyaan aan jirin markaan aragnay arrimahaas oo dhan ayaa nagu dhalatay inaanu shaqadan aan bilowno
waayahay saynu wadoognahay ibraahimow dalkeenu ma lahaa dee bangiyo caalamiyahoo aynu order ka dalban karno oo kale markay dadku idin yimaadaan ay alaabada idinka dalbadaan bal hadda adigoo sawir dadka ka siinaya qaab noociyee baad isticmaashaan alaabo waxa horta bangiyadii waxa haddii la doonayo for example lacagta Dubai waxay xafiiskayga Dubai ayaan u dirnaa lacagta markaan u dirno lacagtii isaga xagaas laga sii diraa oo Dubai waxa jira wad garanaysaa bangiyo badan oo caalami ah waxaan sameyn karnaa xaggan toos ma loo dhigno wax TT la yiraahdo isticmaali karaa oo from China lagu diro xawaaladaha oo la isticmaali karaa Dar es Salaam baa la isticmaali karaa Dar es Salaam bank marka iyo dahabshiil waxa adigu marka kuwaas isticmaalna marka kuwa adigu qofkii marka garantiga waxa siinayna for example had qofkii isaga waxa taadu doono lacagti shul kara anaga noo iman ayaanu address kuma siinayna akoonka marka uu ku shubay isagoo isticmaalaya xawaaladaha Dar es Salaam iyo kuwan adeegyada noocaas qabtay lacagta waayahay marka ay idin yimaadaan dadka muwaadiniintii ama dawladahaadaan ama injo ahaadaan ama dadweynaheena kalaba ha ahaadaane shuruud noocee baad ku xidhaan intaydan adeegga u qabanin shuruudaha horta ku xidhnaa waxa weeyaan qofkii inuu og yahay waxaan uu dalbanaya amba inuu market research soo sameeyay oo uu garanayo meeshuu gelinayay ganacsiga meeshuu gelinayay uu marka for example hadduu u baahan yahay qofkii consultant oo sameeyna wax lana shirkad kale oo consultant sameysa oo adeegaas u qaban karta marka shuruuduhu waxa weeyaan qofkii horta inuu noqdo qof wixii serious ah waxa jira dadku way ku imanayaan waxa ku horeeya alaab doonayna loo keeno shaqadii baad galaysaa marka shaqadii gashid waxa laga yaabaa qofkiiba inuu ku soo noqdo marka shuruudahan ku xirna waxa weeyaan qofkii inuu horta marka hore quotation-kii baan siinayna quotation-kii ku qancay markuu ku qancay qofkii waanu contract ma la saxana contract-aas uma qofka kii loo dhaxeeyay nakala saarayay qofka marka adigu dadkii dadka marka saasa dhacda imika 2 sano iyo dheeraad ayuu xafiiskani inta uu maxaa la aasaasan yahay ka soo wareegtay 2 sano iyo dheeraadkaasi meelaha aad wax ka qabateen ama aad wax u soo dejiseen oo kale maxaad nooga sheegi kartaan iyo adeega dadka aad u fidisaan ama dawladahaadan ama shicibahaadan horta wallahi waa adeegyo badan baan qabnay mashruuc badan imika mashruucan labka berbera oo lagu shidaalka lagu hagaajinayo kaas anaga keenay anaga maamulkiisa intii maamulkiisu cagaha intuu ku istaagayay ilaa iyo intii la furiyo dhan anaga maamulkiisa aynay containeradaas anaga keenay waxa kaloo aanu keenay waxa weeyaan birahan ku yaal wadadeena ku yaal leerka cusub ee magaalada bilicda quruxda loo sameeyay kuwaasna anaga keenay mashruucyadaas waxa kamid oo kale mashruucyo kale oo dad private ah oo iyaguna waaweyn oo keenay jiraan sida imika kale anaga qalabeynayna wasaaradda macdanta oo qalabkeedii waxa soo dhan haday noqoto furniture-kii xaas anaga keenay marka mashruucyada soo waaweyn mashruuciga ugu weyn wuxuu ahaa mashruucan dekada berbera lagu mashruucan shidaalka lagu sifeynayo mashruucaas ugu weynaa waxaan keenay qabanay waayahay ibraahimow xafiiskan muxuu kaga duwan yahay xafiisyadii hore ee allahumma salli ala maxamed ka jiray ee logistica sameynayay anu xafiiskayga horta wuxuu kaga duwan yahay anagu ma saano focuska only localka ma saano waxaan nahay waxaan xafiisku xafiis ballaaran weeyaan oo xafiiskaygu wuxuu ka duwan yahay waxaan ku leenahay China xafiis kale ku leenahay Djibouti baan ku leenahay marka waxaan anagu aad baan uga xafiiska ballaaranay waxaan ka duwanay anagu ma just localkii waxaan jecel lahay in aanu caawino dadka yar masaakiinta doonay inay business bilaabaan ayaan jecel lahay inaan caawino dad badan oo saas oo kale aan caawino jiro business bilaabay oo nu la talinay consultancy-nay oo nu aad iyo aad wallahi markay u farxay aad iyo aad ugu farxay shaqooyinkan u qabanay waxa jirta dhalinyaro fara badan oo dalka ama dibadda wax ku baratay
oo maanta iska faramaran oo joogta amaba garan la meel ay dee kaga hagaagaan hawlaha shaqo ee ka socda iyaga maxaad fariin halkan uga fari lahayd waxaan oran lahaa dhalinyarta horta qof waxaan waxa weeye courage weeye moogtay marka ma aha qof walba uu gaari karaa hadduu himiladu doonayo iyo hamigu doonayo waxay ka adumay ka go'an tahay inaad go'aankaad gaadhin oo action ki sameeyay ma aha inaad just dream garaysid haddana riyo just atahay war riyado waxaan doonayaa inaad saa sameeyo asaas action ki loo baahan marka dhalinyartu waxa laga yaabaa inay jirto baqasho marka baqashadaasina inay iska daayaan oo ay isku dayaan wax walba waa isku day hadda isku daydid iyo waxa loo baahayo in isku daydid waxa kale loo baahayo dadkii waxa jirin samirkii marka samirkuna aad buu baahayo waxa la yiraahdo samaraasadkii uu helaa marka in aad loo samiro weeyaan qofkii marka inaanu niyad weeyaan ilaahay baa magarasa arsaaqadii iyo meel walba taala inaad fadhiistin ma aha waa inaad adigu socotaad raadsataa marka taas uma dhiman qofkii raadsado uu kaco hurdadii ka kaco uu dadaalkii iyo samirkii iyo inuu ilaahay tala saarto waxaan ku lama ka dhalinyarta haniyad jabine wadankii Chinese badan baa jira shaqooyin badan baa banaanan waxyaabo badan ma banaan marka inay ku dadaalaan sidii ay iyaguna u sameyn lahaayeen horumarka u qayb qaadan lahaayeen way xafiiskiinan waa maxay mustaqbalka dhow iyo ka dheerba himilada uu higsanaya wallahi insha Allah waxaan horta saad ogtahay waxaan anigu jecelahay in noqono xafiiskiina balaanaado saan ku sheegay baa imika Dubai isagana waxaan ka furnaa xarun kale marka waxaan jecelnahay inaan noqono xafiis reliable oo maanta qof meel badan kule xafiisyo caalamka ah marka waxaan doonaynaa inaan noqono kuwa ugu horeeya mustaqbalkuna waxaan doonaynaa noqono wadanka number 1 logistics hogaamiya inaan noqono ayaan jecelahay oo hamigeyga ah insha Allah aan ku tala jirnaa wayhay Ibrahim oo gabagabadii barnaamijkeena inuu taaganahay dadkeena daawanaya daawadayaasheena maxaad kaga tagi lahayd waxaan dadka oran lahaa dadka daawanaya waxaan leenahay waan soo dhaweynaa shaqooyin fiican oo aad ku qanacdaan baan idin qabanayna marka nala soo xiriira waxaad nagala soo xiriiri kartaan Facebook aad nagala soo xiriiri kartaan website-keena waa nagala soo xiriiri kartaan marka insha Allah waan idin soo dhaweynaa si fiican idin soo dhaweynaa marka insha Allah xafiiska nagu soo booqda hadii la helo qaaliga ah ee aad siisay barnaamijkeena maanta iyo sida faahfaahsan ee bulshadeena aad ugu faahfaahisay adeegyada kala duwan ee aad qabataan mar labaad mar saddexaad baan kaaga mahad celinaynaa dadweynahana waxaan rajaynayaa in ay ku soo xirmi doonaan xafiiska sida maanta aanu idin soo booqanayna ay gabi ahaantood idin soo booqan doonaan waxaad tihiin dhalinyaro aad u firfircoon isla markaasina jecel inay wax weyn ka bedelaan dalka horumarka dalkana ka qayb qaadanaya aad iyo aadna waan idinku mahad celinayaa daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena garwaaqso ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad galiyo Sociedade, ali nasceu.